dadka ganacsatada ee gobolkan u dhashay iyo qurba joogta dibadaha jooga iyo dadka ilaahay wax siiyey meel kastoo joogaanba inay dadka naafada ururka naafada dabiiciga ah ee gobolka Gabiley ayaa maanta doortay hoggaan cusub oo ay u doorteen gudoomiyaha Mustafa Maxamed Warsame halka gudoomiye ku-xigeenka ay uga doorteen Cabdi Jibbaar Sheekh Ibraahim xogayaha Xasan Nuur Caateeye haddaba hoggaankii hore ayaa ku wareejiyay hoggaankan cusub isla markaasina ugu duceeyay xilkan cusub ee loo magacaabay hoggaanka cusub waxa halkaasi ka hadlay xubnaha ururka naafada dabiiciga ah ee gobolka Gabiley waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan nahay gudoomiye hore ee ururka naafada ee gobolka Gabiley insha Allah de maanta waxaan wareejinaa xilkii oo aan u dooranay de niman naga aan filanay naga dadaal banaan doonaan insha Allah halkii aanu keenana meel ka fiican ay gaarsiin doonaan biidnillaahi kariim waxa kale oo mahadnaqaynaa insha Allah gudoomiyaha degmada Gabiley Cabdi Maxamed Amiin iyo Xabiib Askar oo labaduba caawiyadaan nahay naafada gobolka Gabiley gudoomiyaha hore ayaan ahaa meel fiican baan soo gaarsiinay maanta aad iyo aad waxaanu mahadnaqaynaa dhammaan inta ka soo qayb gashay oo dhan baan ayaanu mahadnaqaynaa markaa Mustafa Maxamed Warsame waa gudoomiyaha guddida waa gudoomiyaha naafada gobolka Gabiley maanta laga bilaabo qodobka labaad waa gudoomiye ku-xigeenka naafada gobolka Gabiley Cabdi Jibbaar Sheekh Ibraahim taariikhda maanta laga bilaabo xogayaha naafada gobolka waxa weeyaan Xaashi Nuur Caateeye annagoo halkan maanta ururkii naafada joogna waxaan alxamdulillah iskuna wada faraxsan alxamdulillah rabbil caalamiin macal naafadayda ku faraxsan ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leenahay inta xilka loo magacaabay ilaahay nagu xil tiro maxay hay'adeen intii haysayna aad bay u mahadsan yihiin sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka ururkan gudoomiyaha iyo xogayaha iyo ma garanaysay gudoomiye ku-xigeenka waxaan halkan ugu bogaadinayaa sida sharafta leh karaamada leh maanta xilka loogu wareejinayo inay ugu shaqeeyaan daacadnimo iyo karaamo waxaana leeyahay aad iyo aad anigu halkan madaxweynaha sharafta leh ee maanta baxaya taariikhda ku sutan bishan March ee martiqaadka loogu fidiyay dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka guul baan isaga u rajaynayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ugu dambeyntii waxaa hadallada iska daba qaatay guddida naafada dabiiciga ah ee gobolka Gabiley waxaan leeyahay war ilaahay laxaadka idiin dhameeyay wuxuu idinku dhameeyay de maaragtay cidii maaragtay wax ka dhiman yihiin inaad ku caawisaan oo ku taageertaan sida daraadeed waxa loo baahan yahay waxa idinku xiga maal iyo dhul iyo wadooyin iyo waxa idinka xiga dadka idinka xigo idinku ugu mudan ilaahayba kaasoo fadalay marka inaad taageertaan oo aad wixii aad haysaan ku caawisaan ayaa fiican oo aydan iska dhigin qof kuwa maaragtay inta waxaysay inaad idinku wax qabsateen iska dhigin ilaahayba idin qabtay waxay u baahan yihiin xafiis amba meel hantiya oo iyagu iskoodu leeyihiin oo loo dhiso oo lagu soo tabaruco amba ay dawladda hoose siiso ayay u baahan yihiin oo waxay u baahan yihiin meel wax ku bartaan waxaan doonayaa dadka ganacsatada ee gobolkan u dhashay iyo qurba joogta dibadaha jooga iyo dadka ilaahay wax siiyey meel kastoo joogaanba inay dadka naafada meel ay degaan oo waxay ku bartaan oo kaambol iyagoo ay leeyihiin loo sameeyo waxaan halkan ka malaynayaa naafada ay dooratay ilaahayna inuu xilkaa igu asturo saalna waxaan leeyahay halaga tagin in laag joogtay si kastaba ha ahaatee ururka naafada dabiiciga ah ee gobolka Gabiley ayaa waxa xafiiska ku deeqday haweeney muxsinad ah isla markaasina ugu tala gashay inay ku shaqeystaan sidoo kale waxay baaq u direen qurba joogta ganacsatada xukuumadda iyagoo ugu baaqay in laga soo caawiyo gaadiidka ay ku gaarayaan baahiyahooga gaarka ah waa Cabsalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley